assalaamu calaykum ku soo dhawaada sheeko cibro qaadasho iyo cashar qof walba u noqon karta. Wiilkan dhalinyarada ah waxaa lagu magacaabaa Raabi wuxuu soo iibsaday mootadaasoo ah tii uu weligiis jeclaa uuna ku hamin jiray inuu maalin maalmaha ka mid ah wado. Haddaan milicsano nolosha Raabi waxaa soo korisay hooyadiis, aabbihiisna wuxuu dhintay isagoo aad u yar. Hooyadiis waxaa lagu magacaabaa Maam Faatima jacayl xad dhaaf ah ku soo korisay wiilkeeda, waxayna bilowday inay ka waaniso khatarta ay leedahay mootada, waxayna ugu baaqday inuu dib u iibiyo mootadan. Laakiin Raabi wuxuu dayacaa waanada ay hooyadiis u soo jeedisay, wuxuuna bilaabaa inuu u sheego inuu yahay nin weyn oo 24 jir ah, kana weynaaday xilligii wax loo sheegayay. Raabi hooyadiis oo la hadlaysa wuxuu bilaabaa inuu mootadiisa sheelaraysto, wuuna baxaa. Hooyadiisna waxay bilaabaysaa inay ka soo daba cararto, welina ku qanciso inuu iska iibiyo mootadan. Laakiin mar kale ku soo jeesanaa, wuxuuna dhahaa wixii dhaca dhacaan, wuuna ka tagaa. Maama Faatima aad ayay u murugoonaysaa, waxayna dareemaysaa quus ah in wiilkeeda uu hadalkeeda maqli waayay. Dhab ahaantii Raabi hooyadiis aad ayuu u jecel yahay, wuuna ogyahay sidoo kale inay daryeesho. Sidoo kalena wuxuu ogyahay in wax keliya ay u diidayso ay tahay inay ka cabsanayso in mootadan uu shil ku galo, sidaasna nafsadiisa halis ku gasho ama dhaawac daran uu soo gaaro. Raabi abaal ayuu u hayaa hooyadiis waxay u samaysay iyo korintiisa ay ku noqotay keligeed, laakiin wuxuu fahmi leeyahay dhallinyarnimo darteed waxay u doonayso inuu iibiyo mootadiisa. Wuxuu u imaanaa saaxiibkiisa, sheekadan ayaan dhex maraysa labadooda. assalaamu calaykum. Wacalaykum salaam. Saaxiibsata i waran waa fiicana yow goorma soo gaday mootadan? Yow haddaan soo gaday yaa ka soo bixisay wax badan ma aha, keliya inta suuqa joogto keliya waa ku soo gaday. waxay ujeedaa in wadista ku fiican tahay. yow haddaan ka iibi ka waran? maya macaafees saaxiib, war lacagtana kaa siinaa, qiimo badana kaa siinaa, iga iibi. no saaxiib, baash way cusub tahay, weli maanan wadin, si kaa iga iibiya markaan jecla usoo gataa u qabaayo. laakiin saaxiib hooyada inaysan mooto jeclan og tahay maxaa ka wadaa? dhimana saaxiib, caadi waay. okay waayah. okay saaxiib, wax salaamahe, nabad ku wad insha allah, is ilaali. okay bye. Maama Faatima way taqaanaa wiilkeeda Raabi in ka badan inta uu yaqaano qof kale, ileen waa hooyadiisii. waxay u soo cararaysaa dhanka TV-ga, waxayna maqlaysaa in shil uu ka dhacay magaalada, waxayna fariin qoraal wiilkeeda u sheegaysaa inuu iska iibiyo mootada. Raabi waxaa u soo dhacaya fariintii kaga timid hooyadiisa. wuxuu bilaabaa inuu eego telefoonka intuu eegayana waxaa ku imaanaya gaari, shil ayuuna galaa. waxaa u imaanayo ninkii gaariga ku dhuftay, wuxuuna hubinayaa in Raabi uu dhintay iyo in kale. sidoo kale wuxuu ka furaa koofidii helmadka ahayd ee madaxa kaga xirneed. Raabi markii laga furo koofida aad ayuu u neefsanaa, wuxuuna codsanayaa in hooyadiisa loogu waco, weliba isuu cod dheer ku qaylinayo. Raabi oo nasiib u yeelan inuu akhriyo fariintii u dambeysay hooyadiisa ay u soo dirto, waxaa la dhigaa isbitaalka, waxaana soo booqanaysa hooyadiisa oo aad u naxsan. dabcan Maama Faatima in badan ayay isku dayday inay waaniso wiilkeeda, uguna digto khatarta ay leedahay mootada, laakiin isagaa ku dhaga adeegay. waana tan dhibkii ay Maama Faatima ka digaysay markii hore. Maama Faatima waxaa u imaanaya doktoorka, wuxuuna u wacaa xafiiskiisa si uu ugu sheego war naxdin leh, kaasoo ah in wiilkeeda ay u badan tahay inuu mar dambe lugihiisa ku socon doonin. Maama Faatima aad ayay u murugoonaysaa, wayna oynaysaa, waxayna ka murgaysaa in wiilkeedii ay wax walba hori jirtay haatan waxay ka dambeeyay uusan cagihiisa ku socon doonin. waxay soo xasuusanaysaa bilowgii nolosha wiilkeeda, kaasoo ay ku riixi jirtay gaariga carruurta, laakiin maanta isagoo nin weyna ay ku riixayso gaariga uusan ahayn gaariga carruurta, uu yahay gaariga curyaamiinta, midaasna ay sababtay madax adeegiisa dartiis. Raabi wuxuu garwaaqsaday qaladkii uu galay, wuxuuna ogaaday qofka keliya ee garab jooga xilliyada wanaagsan iyo xilliyada xunba inay tahay hooyadii macaan, waxbana aysan u tarin saaxiibadii uu waqtiga ku lumin jiray had iyo jeer. mar kale Maama Faatima waxay wiilkeeda ka caawinaysaa inuu socdo, sida kalkii hore ayay u dhiirigelinaysaa inuu istaago. waxay gacmaha u saaraysaa birtaan hortiisa taala si uu u istaago, cagihiisana ugu socdo mar kale. Maama Faatima waxba kama dhibaayo culayska, mana dareensana
waayo waa wiilkeeda, waxayna mar kale doonaysaa in indhaheeda ay ku aragto wiilkeeda oo soconayo. Way dhiirigelinaysaa, laakiin wuxuu dareemaa xanuun. Fadhiga ayuuna dib ugu laabanaa. Kama quusanayso, wayna soo istaajinaysaa mar kale si uu u socdo. Iyadoo dhiirigelinaysa waxay leedahay, ha quusanin, waa socon kartaa, hana jabin weligaa, soco hooyo. Rabi wax walba uu sameeyey, hooyadii waxay u jeceshahay sida kalkii uu yaraa. Xitaa waxay u socod baraysaa sida markii uu yaraa. Wuxuuna ogaanaa in hooyadiisa ay aad u jeceshahay. Wuxuuna uga mahadcelinaa korintii ay soo korisay iyo sida ay mar walba u garab taagan tahay. Wuxuu ka dhunkanaa gacanta isagoo muujinaya xushmad. Wuxuuna sidoo kale ka dhunkanaa sujuudda. Hooyadu waa makhluuqa ugu naxariista badan ee ku dul socda dunida korkeeda. Lamana helayo makhluuq iyada ka naxariis badan. Qaar inaga mid ah waxay hadallo aan qurux badnayn had iyo jeer ku dhahaan waalidiintooda, laakiin falcelinta waalidiintooda waxay noqotaa cafis iyo saamaxaad. Waayo xaqiiqdu waxay tahay in jacaylkooda uu ka weyn yahay keena. Taas ayaana keenaysa in had iyo jeer ayna cafiyaan. Casharka aan ka baran karno qisadan waxay tahay in wax walba oo ay nooga digaan waalidiinteena uusan ku jirin wax khayr ah, ayna waajib tahay inaan ka harno dhammaanteen. Haddii aad ka heshay qisadan, ayna tahay markii ku horeyso aadan soo booqato, fadlan like saar video, subscribe-na saar channelka, una sii share garee saaxiibada si aan u soo badino qisooyinka noocan ah. Mahadsanid.